السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا أصحابتي يا أخياتي وحن كل سلام يا سلامتي السلام السلام عليكم بعد السلام وإنجنير خالد أحمد فودادي وإذن لك سو دوادا برنامج كني حسابتا امتحانها إنو صوعا ويا إنت مركا كيما ما بسلام waxay suu keen dambeysay layris baan dirnay layriskeennasi xisaabtii ugu horeysay waxay ahayd laba tiro la isu geynayay horeynu soo sheegnay xisaabaadka ardaygii xisaabta kasoo shaqeeyay jawaabta xisaabtan waxay noqonaysaa afar oo loo geeyay 3 micnaheedu waa 7 ardayda intii kasoo shaqeysay waa ku saxan tahay oo jawaabtaas soo saartay intii kale waxa laga rabaa inay dib ugu noqdaan xisaabta xisaabinteeda su-aasha labaad een hore isugu dirna waxay ahayd hal oo loo geeyay 5 bay ahayd taa micnaheedu iyaduna waxa weeyaan 6 jawaabteedu jawaabta kana sii wada waxa weeyaan su-aasheenii saddexaad oo ahayd 2 loo geeyay 2 oo noqonaysa marka labadaas la isu geeyo 4 dhammaan jawaabaha noocaas ardayda soo saartay xisaabtooda waa sax ardayda intii kale jawaabahaas u soo bixin waxaan ka rajaynayaa inay dib ugu noqdaan casharkooda oo dib u fiiriyaan bal xisaabaadka isu geyntooda iyo habka ay u wadaan kulley intaas ayaan ka tegay layliskeena hore casharkeena waa casharkii labaad ee serious-keena xisaabta ahaa casharkeena labaad wuxuu noqonayaa saas la mid ah xisaab waxaan ku jirnay xisaab fallada qaybtii isu geynta ama sida wadarta xisaabaadka loo soo saaro serious-keena labaad darsigeena labaad waxaan ka dhigaynaa tirooyinka si la isugu geynayo ayaan hore ugu sii soconayaa waxaan kusii soconnaa waxa weeyaan tiro 1 god ah iyo tiro 2 god ah habka la isugu geeyo tirada koowaad ama tusaalaha koowaad aan idhaahdo tuse aan usoo gaabsado tusaale waxaan ka dhigayaa waxa weeyaan tiro 1 god ah iyo allahumma salli calaa maxamed ee tiro 2 god ah si aan u barno ban sida la isugu geeyo tirooyinkaasina waaya ta koowaad waxaan ka dhigayaa tusaalaha koowaad waa tiradan 2 god ah oo loo geeyay tiro 1 god ah tiro 2 god ah oo loo geeyay tiro 1 god ah waxaan isugu geynaynaa haddaba habkeen hore usoo naqaano ee tirinta xisaabaadka anigoo qaadanaya maanta sticks ama ulaan qaadanaya maanta ulahaasi ardayda dhammaan waa lagu tirsan doonaa waayo xisaabteenna waxaa kala qaybisa calaamadan wadarta tilmaamaysa isu geynta ah ee kala qaybisa marka waxaan soo saarnaa wadarta tiradooda 12 haddii lagu daro 5 imisay noqonaysa jawaabtana waxaan ku qori doonaa positionkan iyo halkan aan ku qorayna waayahay ardayda waxaan ka codsanayaa ugu horeyn inay fahmaan in tiradani ay tahay tiro hal xaba ah tiro wada socota iyadoo 2 goda laakiin waa tiro wada socota waa hal tiro tiradana waa hal tiro that means maanta waxaan isu geynaynaa labadan tiro sidii tiradeena hore u ahayd xabad iyo xabad sidaas si lamid ayay tana u tahay tiradan dhammaanteed ay isugu tahay hal xabo tanna ay xabad u tahay waayahay that means ma aha tiradana gooni tanna gooni maaha tiradana waa isku hal tiro tanna waa tiro gooniya calaamadana ana kala qaybinaysa waayahay aan ku sii socon markaa tirooyinkeena waxaan soo qaadayaa ulo tirada horaan marka hore jaantus ahaan u sawirayaa jaantus ahaan markaan u sawiro ta dambena jaantus ahaan baan u sawirayaa kadib wadartoodan qorayaa oo jaantusa halkanina waan dhigaya insha allah biidni raxmaan waaye tirada koowaad waa 12 ulood baan isbarbar dhigayaa 1 2 3 4 5 6 7
sideed sagaal toban koob iyo toban labiyo toban labiyo tobankaas waa labiyo tobanka ulood ee hore oo isku hal tiro ahayd waxaan u geynayaa tirada labaad anaa udhexaysiinaya calaamadii udhexaysay ee isu geynta ahayd tirada dambena saasi lamid oo waa 5 iyadana 5 ulood baan soo qaadanaya 1 2 3 4 5 waayahay waa isku imisa waxaan tirinaynaa haddaba tirooyinka ulaha aynu haysano inagoo isku wada daba qabanayna tiro ahaan numberka sidaynu tirinayno waa tiradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban that means halkan xataa haddaynu ku qorno isku wada daba qabano 17 ulood bay noqonayaan 3 4 5 6 7 8 9 10 koob iyo toban labiyo toban 1 2 3 4 5 intaas waa isku imisa waa isku 17 ulood 12 xagga hore ahaa iyo 5 dambe 12 ulood oo ilaa halkaasi ahaa iyo 5 xagga dambe 5ta dambe way tirooyinka ulahani waxay noqonaysaa 17 ulood saadiraad tiradan halka ku qoraya maanta waxa weeyaan 17 waa habka loo soo saari karo tirooyinka labada god ah haddii loo geeyo tiro hal god ah maanta xisaabteen iyadoo bilow ah waxaan jeclahay tusaale ahaan in xabadaasi inoogu filaato ama xabad labaad aan raaciyo iis way xabad labaad baan raacinaya tirada labaad aan raacinaya waxa weeyaan tiradan 11 loo geeyay 8 sidaas la mid ah marka hore waa hal tiro intan waa isku xabad intana waa isku hal xabayaduna way tirada koowaad waxa weeyaan 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka ulood weeyaan waxaan ku darayaa 8 ulood 1 2 3 4 5 6 7 8 waa isku imisa aan tirino 1 ardayow ila soco 1 waxbayaan ku khaldaan qaanka fiisa laakiin ila tiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban that means tirooyinka markaynu isku darno waa imisa waa 19 ulood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 waa 19 labada tiro haddii la isu geeyo